saynis yahanadu waxay helayaan adduun goday oo gunta hoose ee dhulka hoostiisa. Dhulku had iyo jeer waxaa ka buuxa waxyaalihii qarsoonaa, daahfuryo cusubna waxa ay si joogto ah u furfuraan xujooyinkaas, iyaga oo su'aal ka keenaya fahamkayaga adduunka aan ku noolnahay. Laakiin ka waran haddii waxa aan aragno ay yihiin oo keliya qayb ka mid ah xaqiiqada. Bal qiyaas in dusha sare uu ka jiro cabir qarsoon, dhul ka mid ah siraha hore iyo xoogag aan la garanayn oo qeexaya jiritaankeena. Ma laga yaabaa inay jiraan wax ka badan waxa ay indhaheenu arkaa? Su'aalahani waxay nagu qasbayaan inaan si toos ah u eegno meelaha muuqda ee aan la garanayn ee meeraheena. Dhowaan saynisyahanadu waxay heleen balastar ka iman kara qolofta qadiimiga ah ee Earth oo loo yaqaan adduunyada gaboobay, kuwaas oo lagu aqoonsaday gunta hoos. Nabaradan dahsoon ayaa lagu ogaaday hab cusub oo khariidadaynta gudaha meeraheena, meelo aan la filayn waxayna badashay fahamkeena soo jireenka ah ee dhaqdhaqaaqa tectoni. Natiijooyinkan waxaa lagu daabacay joornaalka warbixinnada sayniska waxayna fureen jihooyin cusub oo lagu fahmo taariikhda juquraafiyeedka dhulka iyo hababka firfircoon ee ka dhacaya cagaheena hoostooda. Saaxiib sabiskaraab ii saar YouTube-ka mahadsanid. 10 sano, saynisyahanadu waxay isticmaaleen seismograbs si ay u abuuraan sawirada 3 ee gudaha dhulka iyaga oo falanqaynaya sida mawjadaha seismic ee ka imanaya dhulgariirada ay dib ugu soo celinayaan meeraha. Habkani waxa uu ka caawiyey in la aqoonsado qaybo qadiimi ah oo qolof ah oo loo yaqaano lakabyo la hoos dhigay oo la soo dhexgeliyey gogosha iyada oo la sii marayo aagaga hoosu dhigga halkaasoo taarikada tectonic ay isugu yimaadaan. Bishii Oktoobar 2024, cilmibaarayaashu waxay heleen qayb ka mid ah sagxadda badda oo ku daatay marada ka hoosaysa jasiiradda Easterk. Daraasadda oo la daabacay 4 Noofambar 2024, cilmibaarayaashu waxay daaha ka qaadeen in abuuritaanka dhowr lakab oo la filayo gudaha dhulka lagu muujiyey farsamo loo yaqaano seismographic imaging. Cilmibaarayaashu waxay soo saareen xog ku saabsan cabirada blobka, foomamka iyo meelaha boobka gaarka ah. Si kastaba ha ahaatee, liddi ku ah saqafyada hoose ee hore loo go'aamiyey ee laga helay aagaga la yaqaan ee isku dhaca tectonic, qaar ka mid ah cillado cusub ayaa hoos jiifa gobollo iyada oo aan wax shil ah oo tectonic ah la duubay oo ka hooseeya galbeedka badweynta Pacific. Tani waa natiijo lama filaan ah oo saynisyahanadu hadda la halgamayaan su'aasha ah sida ay ku yimaadeen meelaha. Saaxiib sabiskaraab ii saar YouTube-ka mahadsanid. Taasi waa dhibkeena, ayuu yidhi Thomas Stoughton, oo ah musharaxa dhakhtarka ee Itsurit Geological Institute ee Switzerland, bayaan uu soo saaray Janaayo 7. Iyadoo la adeegsanayo qaabka cusub ee xalinta sare, waxaan ku arki karnaa cilladaha noocan oo kale ah meel kasta oo ka mid ah gogosha dhulka. Laakiin si dhab ah uma garanayno waxay yihiin. Mid ka mid ah sharaxaad macquul ah oo ku saabsan blobyada cusub ee khariidadaynta ayaa ah inay ka kooban yihiin walxo qolof la mid ah oo ka soo haray abuurista marada 4 bilyan oo sano ka hor. Dhanka kale, waxaa laga yaabaa inay ka kooban yihiin walxo kale oo cufan oo ka dhex abuurmay gogosha dhowrkii boqol ee milyan ee sano ee lasoo dhaafay. Inkasta oo ay jiraan aragtiyahaas, dabeecadda dhabta ah ee boobkan ayaa weli ah qarsoodi weyn, sida ay ku qeexeen wakiilada Itsurit. Fahamka guud ee gudaha dhulka ka hor daraasadan waxaa laga soo saaray seismograbsyada caalamiga ah ee ay soo saareen dhulgariirada gaarka ah. Taas beddelkeeda, habka loo adeegsaday cilmi-baadhistan rogidda mawjadda buuxa waxay isu keentaa dhammaan seismograbyadan hal sawir oo cad iyada oo la adeegsanayo moodooyinka kombuyuutarada. Dhab ahaantii, farsamadan xisaabeed dhammaystiran waxay u baahday Bisdaint supercomputer ee xarunta supercomputer ee Switzerland ee Lugano si loo habeeyo dhammaan xogta. Saaxiib sabiskaraab ii saar YouTube-ka mahadsanid. Tue Fitner, oo ahaa qoraaga daraasadda iyo horumarinta Itsurit, ayaa aaminsan in horumarku uu ahaa mid muhiim ah sida horumarka sawirqaadista caafimaadka, bal qiyaas dhakhtar ayaa baranaya habka wareegga dhiigga muddo 10 sano ah, ayuu yidhi Fitner. Marka haddii aad siiso iyaga qalab cusub oo ka fiican, waxay si lama filaan ah u arkaan halbowle ku yaal badhida oo aan runtii meeshaas ka tirsanay. Taasi waa sida aan u dareemayno natiijooyinka cusub. Cilmi-baadhayaashu waxay aaminsan yihiin in boogaha cusub ee la helay laga yaabo in la hoos u dhigo sariiraha sababtoo ah xawaaraha la midka ah ee hirarka seismicku ku dhex mara. Si kastaba ha ahaatee, tani ma xaqiijinayso aqoonsigooda, hubinta in cilmi-baaris dheeraad ah ay go'aamiso dabeecadooda dhabta ah. Waa inaan xisaabinaa cabirada walxaha kala duwan ee dhalin kara xawaaraha la arkay ee noocyada kala duwan ee hirarka, ayuu yidhi Stoughton. Asal ahaan waa inaan si qoto dheer u dhex galnaa sifooyinka walxaha ka dambeeya xawaaraha mawjada.